barnaamijka bandhiga TV-ga Universal 2015 ayaa ahayd markii ugu horeysay laga yegleelay magaalada Boorama ciidankii dabdamiskii ugu horeeyay haddaba waqtigaasi ka horeyna magaalada Boorama yeelan ciidanka dabdamiska hadii daawaday aan sawir guud ka siiyo maraaxilkii kala duwanaa ee magaalada Boorama ay ku sugnayd ayaa waxa magaalada dabka ka kaca bulshadeedu ay ku baqtisa gamcaha taasina ay sababto muddo badan ay la tacaalayaan daminta dabkaasi kadib ay bartaasi ku shufbeelaan nafiya maalba balse Boorama maanta waa mid ka kortay taasi oo leh ciidan dabdamis oo u tababaran baqtiinta dabka iyo badbaadinta hanti iyo nafba dhawaan waxa magaalada Boorama soo gaaray ciidankii dabdamiskii ugu horeeyay oo qaba tababar dhanka ciidanka dabdamiska ciidankaasi oo iyagu ciidan u tababaran daminta dabka una baba dhigi kara lana dagaalami kara dab kasta oo ka kaca gudaha magaalada Boorama isla ciidankana ayaa laga qaaday imtixaan la xiriira aqoontooda waxbarasho ayaa waxa uu taliyaha guud ee ciidanka dabdamiska heer qaran ee Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Xasan Sawaaxili uu soo magacaabay 3 sarkaal oo kala Cabdixamiid Saciid Isxaaq taliye Maxamed Abdullaahi Askar taliye ku xigeen Saalax Cilmi Nuur madaxa howlgelinta ciidanka xaragto oo u horeyso bogas kaayar ee ku qoran tahay ururka bisha cas oo inagu deeqeen dhowr bogas oo noocaas ah oo aaladaha caafimaadka ee first aid ka leedahay ay noogu jiraan jarakaanka arkayso waa qalabka aalada lagu baqfiyo liquidka magaciiga waxa la yiraahdaa foam haanta hore cas ee arkaysa halka inaka gacanka ku ay askarigaasi waxa la yiraahdaa daray boodar waxaanu isticmaalnaa electric waxaana loo isticmaali karaa oo kala liquidka halka xaanadaha waxa inoogu jira qalab uu ku tusayay tariix xigeenku oo systemkii wax baqtiinta ka waxa la dhahaa branch waxa lagu xiriiriyaa hoosas baa lagu xiriiriyaa hooskaasi laba qaybood dhowr qaybood buu shaqeyn karaa qaybtii liquidka oo foomta ku xiriirino qaybtii biyaha oo wixii adka oo ku isticmaalo ka waxa la dhahaa FP10 aalada aad aragto ee sida baasuka weeg waxa loo isticmaalaa kaalmaha oo kale markay gubtaan oo qalabka foomka ayaa lagu xiriiriyaa waana qalab sameeya covered aalada kale oo askarigaasi gacanta ku hayo big up tube baa leeyahay wuxuu xiriiriyaa oo soo qaada foomta wuxuuna ku sii xiriiriyaa biyaha oo inductor qalab leeyahay halka ay naga tusi doona uu dhaxeeyo waa xiriiriyahaasi 3 qaybood ayuu mid walba madaxiga galaya hooskii inductorkii iyo big up tube-kii saacada dhinaca ku jirta waa saacad lagu isticmaalo barashar kulbayntu yahay barasharka bilowgiisa waxaad ka dhiganaysaa markaad xiriirsanayso 3 kolba inta doonto waad ku dhisan kartaa ilaa 6 marka aalada foomtu xiriirinteedu saasay u shaqeysaa hal hooso baaburka la soo gashado iyo hal hooso laga sii qaado halka oo lagu xiriiriyo big up tube-ka ee lagu xiriiriyo FP10 si aan haddaba ugu kuurgalno ciidankan iyo qaabka ay u shaqeeyaan ayaa maanta waxaan ku booqanay xarunta ciidanka dabdamiska gobolka Awda ay ka degan yihiin magaalada Boorama waxaan kula kulmay saraakiisha ugu sareysa ciidankaasi ugu horeyn waxa warbixin dheeraad ah naga siiyay qaabka ay howlgelinta ciidanka dabdamiska gobolka Awda ay u shaqeeyaan iyo waqtiyadii ugu horeeyay ee ciidankaasi si rasmi ah looga yegleelo gobolka Awda ugana shaqo bilaabaan mudane Saalax Cilmi Nuur madaxa howlgelinta ciidanka waxaanu halkaasi iiga sheegay marka kuwaad baabuurtani waxay noo yimaadeen gobolka 2015 horaantiisii waxaan dhaqaajinay oo hawshooda laga saaray stationka booliiska saldhigga dhexe 2015 bishii 9aad oo aan isku daynay inaan bulshada adeegga loo soo iibiyay ku shaqaysiino waxna uga qabana hawli looga soo iibshay waxaan wadnay muddo sanad iyo bara temporary bacdeen dawladda dhexe qaybaheega heerka qaran ee dabdamiska ayaa noo yimid waxay naga qaadeen imtixaano waxa ku soo baxay 20 askari oo askartan ila joogtay madaxda inta ay ka mid yihiin iyo 4 diroon systemkii shaqo ee sida u wadnay waxa la noo diray tababarkaas oo ku saabsanaa hababka loo baqtiyo dabka sida loogu adeego iyo loogu gurmado ummadda iyo training military qaybaha dabka ee loo gooyo leyrka iyo hawlaha ku saabsan electriga iyo sistamyada kale bulaha wixii qasaare ku keenayo looga badbaadiyo
ay ka mid yihiin ballayada daadadka sistamyadaas oo dhan ayuu tababarkaygu ka koobnaa waxaana soo qaadanay muddo dhan 9 bilood tababarkii wuxuu noo soo xidhmay 2 bilood ka hor يعني 2 bilood ka hor buu noo soo xidhmay aanan ku soo noqonay gobolkii waxaan ku soo yardhaafay wariga baabuurtan waxay ku yimaadeen dadaal shicibka heer degmo heer gobol iyo heer qalanba alla sameeyo dawladda ay ku garab gashay anaguna waxaan dadka iyo bulshada heer qaran iyo heer degmoba ugu tala galnay tababarka iyo juhdiga badan ee madaxda heer qaran soo galiyaan inaan ka caawino wixii dhib ay ku imanaysa bulshada heerarka dabku kala baxaa ee aan ku baqtiinaa waa dhowr qaybood dhowrka qaybood waxa kamid ah qayb adka ah iyo qayb liquid ah iyo qayb electric ah waa qaybaha waaweyn qaybta adkaha waxaan ku isticmaalnaa waters qaybta liquidka waxaan ku isticmaalnaa foam qalam leeyahay halkan ku jira qaybta kale ee ka electric shock ama wixii la mid ah ee ka imanaya waxaan ku isticmaalnaa qalab halkan ku jira oo dareey boodar ama carbon dioxide waxyaabaha dhaliya dabka ee had iyo jeer bulshadu inay taxadir badan ka sameeyaan waxa kamid ah electric shock sida uu ku sameeyaa waa mobiliska oo lagu iloobay dab oo daaqadaha habeenkii ay furan yihiin daaqadaha sawada oxygen-ta uu siinayo dabkaasi ka dhashay electric shock-gaasi ayaa keena in riski badan oo qasaaro ku sameeya aqal ama meherad ama meel ka waaweynba isla mar ahaanta qaybaha badbaadadayadu waxay u kala baxaan wargelinta la soo galiyaa waxay ku xidhan tahay kulba systemka bulshada ay ula socoto numberkan adeegan marmar waxa dhacda inta ay isweydiinayaan numberka bulshada oo dib u aakhiro gurmadkayga waxaanan bulshada wargelinaynaa mar walba inay ku dadaalaan numberka adeegayagan uu ku shaqeeyo oo ah 290 oo adeega ah sida dhaqso aan ugu gurman karna dadka kolbana waxay ku xidhan tahay xaaladayadu sida wargelintaasi nooga timaado iyadoo xaaladoodu ayna hayn dab gurmadkiisa oo kaliya ee aan ku galno qaybaha kale daadasha ballayada daamiska waxa ku dhaco dhan haday tahay force good oo badbaada aan ka sameyn karno daad wuxuu qaaday arrimahaas oo dhan adeegooga aan fulin karnaa waxaan sameynaa wax kasta oo khasaare bulshada u keenaya inaan ka caawino si aan khasaarayaan u sameeyno khasaare yareyn u sameeyno waxaan wacyigelin badan bulshada u sameynaya hal iska ilaasho electric shock-ga ka imanaya qalabka mobilka ee habeenkii laga seexanayo fiishashka hana laga digtoonaado daaqadaha la furayo taas waxa soo raacda system kan yar ee dababka ama unsi ha noqoto ama badeecada loo iibsado ee la dhex dhigay aqalada iyadan in foojignaan badan loo siiyo waxyaabaha kale electric shock keena waxa kamid ah beetooyada oo aan kala hadli doono shirkadaha oo aan systemkii aan dariiqada loo marin lahaa ama ka duman ama adkeynba oo mar walba shock ay dabeelo sameeyaan lulna u ka yimaado systemyada badan ee dabka u dhaca horta noocaas ka mid yahay waxaan kaloon in ka codsanayaa baabuurta dariiqada in ay maqlaan baabuurta qayladhaantooda marka ay ku socdaan u baneeyaan meel kasta ay joogaan geestiisa taliya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska gobolka Awdal mudane Maxamed Cabdilaahi Askar oo isaguna halkaas si faahfaahsan uga hadlaya qaabka ay u shaqeeyaan ciidanka dabdamiska gobolka ayaa waxa uu yiri marka ugu horeysa horta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa TV-ga caalamiga Universal TV ee maanta halkan warbixinta naga qaadaya runtii muxuu ahaa degmada Boorama ama gobolka Awdal runtii horumar fiican baa ka socda degmadu aad iyo aad bay magaalada u sii balaaranaysaa magaaladu way sii weynaanaysaa runtii horumar kasto yimaadaana wuxuu wataa dhibtiisana wataa dheeftiisana wataa marka magaaladu maanta ay marti maxaydeen halka marti amuud ay gaadho halkana marti maxaydeen faaraxi gaadho halkana airportka ay dhaafto wad garan kartaan distance-ka inta leeg ama inta isku jiraan wad garan kartaan runtii gurmadka inta leeg la sameyn karo baabuurtan waxay qaadaan runtii 14 foosto mid qaada midna 7 foosto yu qaada
oo waxa loogu talagalay in inta xaaladaha ugu horeeya ee emergency-ga in lagu damiyo waa loogu talagalay laakiin in booyad mar walba ay daba socoto ayaa martay laga maarmaana runtii marka muxuu ahaa waxaan ugu baaqayaa dadweynaha gobolka qurbajoog iyo qolqoljoogba in runtii martay sidii booyad baabuurta loogu heli lahaa ayaa aad u muhiima iyo ambulance in loogu heli lahaa labadaas shay in loo helo oo martay maxay si gurmadkuna u fududaado haddii meesha martay waxa hawlgalka lagu jirana de waxa dhici karta martay maxay daamayna dad meesha wax ku noqdeen oo ama deyn ciidanka wax ku noqdaan baa dhici karta de wax lagu soo qaado imika waxaan ku soo qaadnaa haddii wax noqdaan baabuurkaasoo ku soo qaadnaa ka weyn isaguna de suurtagal maaha oo gaariga weyn aad arkaysan geestiisa isaguna taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal Cabdixamiid Saciid Isxaaq ayaa waxa uu fariin u diray bulshada reer Awdal ee qurbajooga iyo qolqoljooga waxaanu u diray isla fariimaha noocanaya howlahan qabano aad buu badan yihiin awalan dadku waxay moodaan inaanu ka gurmano kale haata dabka waxaanu gurmanaa dabka waa run waxaan kala gurmanaa aday daad fatahan dadweynaha naga badbaadina ilaahay badbaadiye kasoo koontii karaankeega bini'aadamku uu badbaadin karo waanu gurmanaa waanu ka soo saarnaa hadduu shil dhaco in laba gaari isku dhacaan 990 baa la soo qaraaca waanu gurmanaa wixii dhaawacna waanu soo qaadanaa waxaanu keenaa isbitaalka marka ugu dhow ee degmada Boorama ka ugu dhow baanu keenaa ciidanka damiska ee gobolka Awdal 24 saac waa heegan haddii habeen noqoto iyo haddii dharaan noqotaba diyaar baan loo yahay waana heegan xilli walba soo qaraacdaanba ciidanka damiska lambarka emergency-ga 990 diyaar baanu nahay dadweynaha degmada Boorama degan iyo nawaaxigeegaba waxaan leeyahay lambarka markaad soo qaraacdaan 990 sida ugu dhaqsaha badan ayaan soo gaaraynaa inta badan dadweynaha waxaan ku aragnaa caqabad dabkiina la sii dagaalamaan iyagoo waxaad arkaysaa kaalin haddii gubato kaalintii biyo ku mataqaanaa isku daya inay ku shubaan oo booyad caadiya ay talaashaan dadweynaha waxaan leeyahay waxaa jira qaab loogu talagalay kaalinta oo foom la yiraahdo taasaa loogu talagalay in lagu baqtiyo sidoo kale electricity-ga hadduu short dhaco waxaa jira qalab loogu talagalay oo darey border la yiraahdo oo ciidanka damiska gobolka Awdal loo soo tababaray muddo hal sanana ay ugu maqnaayeen Hargeysa taas weeyaan dadweynaha waxaan leeyahay shaqada ciidanka ha loo daayo mar alle marka dabka aragtaan waxa waajib u inaad soo qaraacdaan lambarka gurmadka degdega oo 99 ebre inta waxaan raacin lahaa ciidanka damiska gobolka Awdal wuxuu u baahan yahay booyadii daba carir lahayd tusaalahaan ilaahay dib naguma keenay bacadlaha magaalada Boorama hadduu maanta ahaan uu qiiqo oo uu gubto ilaahay naga hayo musiibe waxaan ku sidaanaa waa 9 foostana maahin wax baahida aan ku baqtiin karnaay bacadlaha inta leg waxa loo baahan yahay booyadii daba carir lahayd waxaan kaloo u baahanahay ambulance-kii isna dhaawacyada iyo cidii wax ku noqoto hadii guri noqoto haday meherada ku gubataanba lagu gurman lahaa dhaawac bilaadanka soo gaara Hussein Atiye Jama Hussein Gafni barnaamijka bandhiga TV-ga Universal magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal